السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي في الله، laba shay haddii aan samayno awliyada ilaahay subxaanahu watacaala aan kaga mid noqonayno. ilaahay subxaanahu watacaala fii kitaabihi alcasiiz wuxuu ku leeyahay: alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay awliyada ilaahay subxaanahu watacaala intaanan ka hadlin fadlan faa'iidooyinka ay helayaan, laakiin labada shay ee awliyada ilaahay looga mid noqdo waxaa ka mid ah inaad noqoto qof mu'mina ilaahay rumaysan. kadib qodobka labaad wuxuu yahay ee ku xigana inaad alle subxaanahu watacaala ka baqato. marka labadaa shay waxay kuu sababi karaan inaad weli ilaahay noqoto. markaad weli ilaahay noqotona laba faa'iido kala helaysaa. adduunyo inta la joogana laba faa'iidaad ku helaysaa iyo wax ka badan, aakhirana labadaa faa'iida wax ka badan buu ilaahay subxaanahu watacaala sida aayadda ay caddaynaysa ilaahay ku siin doonaa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi: laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. adduunyo intuu qofka joogo ma cabsanayo mana murugoonayo. waa faa'iidooyinka adduunyada mid ka mid ah. faa'iidooyinka aakhira waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu watacaala maalinta ay dadka murugoonayaan inuu ilaahay adigana murugada kaa ilaaliyo, cabsidana ilaahay qalbigaaga ka saaro. adduunyo intaad joogtidna ma cabsanaysid oo wax allala waxaad ka baqanaysid ma jiraan, cid ku cabsin gelin karta ma jirto. sidoo kale walbahaar iyo stress iyo warwar xanuunadan hadeer laga sheeganayana waad ka raysanaysaa. marka baaraka allahu fiikum. weli ilaahay haddaad doonaysa inaad ka mid noqoto labadaa shay ilaali.